السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن داوديال ملك سو joogtaan idilkiinba halkani waa shabakada wararka ee warqa tube oo aad maalin kasta uga barataan inay idin soo gudbiso wararkii iyo warbixinadii ugu waaweynaa dunida oo markaasi aanu idin soo xulno oo aan isleenahay dadka Soomaalida meel kasta oo joogan waxbay ka faa'iidi doonaan waxna way kala socon doonaan waxyaabaha dunida oo idilka socda. maanta waa Jimco waa 18 bisha Janaayo sanada 2019 maalin kasta oo Jimco waxaad nooga barateen inaan barnaamijkeena ku la fugurno oo aan ku faaqino mid kamid ah mawaadiicda iyo warbixinada ugu xasaasisan ee dunida ka taagan. maanta oo Jimco waxaan barnaamijkeena ku soo qaadi doonaa tartanka quwadaha adduunka ay ugu jiraan gobolka Geeska Afrika. sidee ayuu u socdaa tartankaasi? yuu u dhaxeeya loolanka ugu adag ee gobolka Geeska Afrika lagu jiro? maxay tahay sababta xilligan ku soo aadisay in uu si xoogeysto muhiimadda uu gobolka Geeska Afrika u leeyahay dunida inteeda kale? wadamada Yurub, kuwa qaliijka Carabta iyo Turkigu halkee ayay ka joogaan tartanka lagu jiro gobolka Geeska Afrika? su'aalahaas iyo kuwa kale ayaad uga bogan doontaan warbixintan aanu ku falanqayn doono tartanka quwadaha adduunka ay ugu jiraan gobolka Geeska Afrika oo aan isleenahay aad bay u xiiso gelin doontaa daawadayaasha ku tixan shabakada wararka ee warqa tube. u diyaar garooba daawadayaal falanqaynta Jimcaha oo rubi saacaha soo aadan aanu si toos ah idinkugu soo baahinayno. waa hagaag aan ku bilowno barnaamijkeena. Geeska Afrika waxa uu muuqdaa in uu soo jiidanayo macaamiil cusub oo tartan caalami ah ugu jirta muhiimadda istiraatiijiyadeed ee uu leeyahay gobolka. waxaa dheeraad ah siyaasadda gudaha ee ka jirta dalalka dhaca gobolka oo aan hal dhinac u jihaysnayn iyo tartanka saameyntiisa wata ee gobolka ka jira ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha. waxaa sidoo kale aan meesha laga saari karin isbeddelka quwadaha Yurub iyo kuwa bariga dhexe ku yaala, kuwaas oo istiraatiijiyad dhaqaale, mid siyaasadeed iyo dana militariba ka leh gobolka. Mareykanku waxa uu cadow ku yahay duulaanka Shiinuhu ku soo qaaday qaaradda Afrika, qaasatan Djibouti, halkaas oo muddo dheer ahayd aag uu Mareykanku saameyn ballaaran ku lahaa. warbixin uu dhowaan daabacay macadka Heritage, la taliyaha amniga qaranka ee waddanka Mareykanka John Bolton ayaa ku yiri si dhaqsi leh Djibouti waxa ay maamulka dekadda Doorale oo ah dekad istiraatiiji ah oo dhacda badda cas ay ugu wareejin rabtaa shirkad laga leeyahay Shiinaha. haddii taasi ay dhacdo, isu dheelitirka awoodda Geeska Afrika oo ah meel muhiim u ah isku gudubka Yurub, bariga dhexe iyo koonfurta Aasiya wuu isbedelayaa, waxaana uu u wareegayaa Shiinaha. ciidamadeena militariga ee ku sugan xirada Limonai waxa ay wajihi doonaan cadaadis siyaado ah oo ku aadan dadaalada ay ku difaacayaan shacabka Mareykanka. waxa uu tilmaamay John Bolton inaysan sahlanayn in saameynta Shiinaha iyo Ruushka loo xaqiijiyo sida midda Mareykanka, maadaama Mareykanku uu saaxiib leeyahay Afrika. Shiinaha iyo Ruushka si ula kac ah oo cadowtinimo leh ayay maalgashigooda bartilmaameed uga dhigayaan gobolka si ay u helaan faa'iido tartan oo ka sarreysa tan Mareykanka. qaaradda Afrika goor hore ayay aragtay sida uu u saameeyay howlgalka Shiinaha uu ku raadinayo awood siyaasadeed, dhaqaale iyo mid military oo uu gobolka ku yeesho. sidaas waxa la yiri la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton, isagoo oo taageeraya mowqifka Mr. Bolton ee siyaasadda Mareykanka ee qaaradda Afrika. ayaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika Tim Berners-Lee waxa uu ka hor sheegay Koongareeska waddankaasi Mareykanka, gaar ahaan guddiga siyaasadda dibadda u qaabilsan, xaqiijintiisa iyo macluumaadkiisa ku aadan in Mareykanku uu gabay hoosna uu dhigay tartankii uu ka waday qaaradda Afrika. waxa uu yiri China waxay u muuqataa lafsad ahaanteeda in ay sii laba jibaarayso saameynteeda dhaqaale, mideeda military iyo mideeda siyaasadeed ee qaaradda Afrika. waxaa waajib nagu ah inaynu baaqi ku sii ahaano dowrkeena ku aadan inaynu cadayno in Mareykanku uu yahay saaxiib markasta la jira Afrika, doonayana in Afrika ay gaarto barwaaqo iyo amni waara. isbedelada hadda ka soconaya qaaradda Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika, ayaa waxay noqonayaan kuwo ka cajabinaya dad badan, maadaama gobolka Geeska Afrika oo ku suntanaa
aagga argagixisada iyo dagaalka uu hadda isku bedelayo goob istaraatiijiyad muhiim ah leh, islamarkaana ay ku loolamayaan quwadaha dunida ugu waaweyn. tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii qaboobay ee dunida, islamarkaana ay korortay weerarada argagixisada ay fuliso, haba ugu weynaadee weerarkii 9/11 ee maraykanka lagu qaaday daarihii mataamaha ahaa, waxa ay qaaradda afrika gaar ahaan gobolka geeska afrika uu ahaa meel argagixisada gabaad u ah, dagaaladuna ay ka dhacaan. maraykankuna waxa uu had iyo jeer usoo siqayay inuu xulufo la noqdo qaaradda afrika, khaasatan wadamada dhaca gobolka geeska afrika. laakiin joogitaanka maraykanka ee gobolka geeska afrika waa uu hilmaamay, waxaana maraykanku uu ku hilmaamay xulafada ballaaran iyo muhiimadda uu siinayay bariga dhexe, iyadoo taasi ay keentay in ay xiise gaar ah siiso gobolka geeska afrika, shiinaha iyo ruushka. tartanka ugu weyn ee gobolka geeska afrika waxa uu dhex marayaa maraykanka, shiinaha iyo ruushka oo ah saddexda dal ee dunida ugu cududa weyn. dagaalkoodu ma ahan oo keliya mid u danaynaya wadamada dhaca gobolka geeska afrika, balse waxa uu ku qotomaa oo uu guntiisu yahay sidii ay u caddaan lahayd cidda maamusha badda cas. badda cas oo ah bad muhiim u ah adduunka oo dhan ayaa hadda u eg masrax ay ku hardamayaan wadamada dunida ugu cududa weyn, waxaana ugu horeeya midowda yurub, turkiga, wadamada khaliijka carabta, israel iyo iiraan, kuwaas oo midba uu daraf ka haysto saddexda dal ee adduunyada ugu waaweyn, maraykanka, china iyo ruushka. siyaasadda maraykanka ee qaaradda afrika iyo midda midowda yurub ee ku aadan qaaradda afrika waa isi soo bedelaysay, waxaana ugu wacan baa laleeyahay muhaajiriinta iyo qaxootiga faraha badan ee qaaradda ka cararaya ee gaaraya dalalkaasi, waxaana yurub ay u aragtay in wax laga bedelo siyaasadeeda ku wajahan qaaradda afrika, maadaama ay sii laba lixaadsanayaan dadka faraha badan ee magangelyadoonka ah ee ka cararaya qaaradda afrika iyo qaybo badan oo aasiya ka mid a. meelaha ugu daran ee qaaradda aasiya waxaa ka mid a dalka yemen oo dhaca badda cas. waxaa intaa usii dheerayd khilaafkii xoogga lahaa ee dhex maray wadamada khaliijka carabta. maraykanku waxa uu wax badan ka bedelay siyaasadiisa ku qotonta gobolka geeska afrika. waxaa tusaale loo soo qaadan karaa sida maraykanka ay xaaladii ugu cakiran tahay gobolka geeska afrika xilligan la taagan yahay, iyadoo maraykanku uu kol hore oo fariisin ka samaysay wadanka jabuuti, waxaana jabuuti ay daris la tahay soomaaliya iyo eritrea. jabuuti waxay ogolaatay in shiinuhu uu saldhig militari ka samaysto ciideeda, iyadoo taliska ah maraykanka ee qaaradda afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo africom uu horay uga samaystay saldhig ciidan wadanka jabuuti. sidoo kale waxaana ambasador bolton oo ka tirsan diblomaasiyiinta maraykanka uu tilmaamay in joogitaanka militariga shiinaha ee wadanka jabuuti ay khatar weyn ku tahay marinka badda casa. haddii china ay ku guulaysato maamulidda dekadda ugu weyn wadanka jabuuti ee dooraale loo yaqaano, taasi oo ah dekad ay ciidamada maraykanku kala soo degaan agabka militari iyo waxyaabaha kale ee ay leeyihiin ciidamada badda ee maraykanka ee fadhigoodu yahay wadanka jabuuti, waxay la macno noqon doontaa in shiinuhu uu maamulo ciidamada maraykanka ee jabuuti ku sugan, maadaama ay la socdaan agab kasta oo dekadaas uga soo degaya. sidaa darteed maraykanku waxa uu ku qasban yahay in isbeddel ballaaran uu sameeyo, isagoo hadda ka fekeraya in saldhig militari uu ka samaysto eritrea, iyadoo oo uu weli sii jiri doono saldhigga uu ku leeyahay wadanka jabuuti. iyadoo laga duulayo dadaaladaas ayaa maraykanku waxa uu aada ugu riyaaqay heshiiska eritrea iyo ethoobiya dhex maray, taas oo waxda arrimaha dibadda ee maraykanku ay ku tilmaantay tallaabo aada u weyn. markii ay isku dhaceen wadamada khaliijka carabta ee loo soo gaabiyay magacooda GCC, eritrea iyo jabuuti waxa ay la safteen oo ay gaashaan la noqdeen isbahaysiga uu hogaaminayay isutaga imaaraadka carabta iyo sacuudi carabiya, waxaana eritrea ay kasoo horjeesatay qatar oo lahayd ciidamada kala dhex joogay jabuuti iyo sidoo kale eritrea oo isku haysta dhul ku yaala xadka u dhexeeya labada dal. ilaa iyo hadda wadanka isutaga imaaraadka carabta kaalin muhiima ayuu ka qaadanayaa tartanka loogu jiro badda cas iyo geeska afrika, waxaana imaaraadka carabta ay xaqiijiyeen in ay maamulayaan dekadda casaba ee dalka eritrea, dekadda berbera ee somalilan iyo dekadda cadan ee dalka yemen, waxaana ay sidoo kale saldhig militari
ka hirgeliyeen dalka Eritrea iyagoo doonaya in sidoo kale Somaliland ay saldhig military ka samaystaan. saldhigga Eritrea waxaa la sheegayaa in inta badan ay maamulayaan ciidamada waddanka Masar, maadaama Masar iyo Isutaga Imaaraadka Carabtu ay xulafo dhow yihiin. Ethiopia ayaa ka soo horjeesatay tallaabo uu waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta ku doonayay in saldhig ciidan uu kaga samaysto waddankaasi Ethiopia, iyadoona ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu sheegay in loo baahan yahay in la siiyo muddo tan iyo inta uu isbedelada dalkaas ka dhabaynayo. Eritrea ayaa hadda noqotay saaxiib cusub oo uu Mareykanku ku leeyahay badda cas iyo geeska Afrika, iyadoo oo laga faa'iideysanayo heshiiskii nabadda ee dhexmaray Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya. Mareykankuna waxa uu arkaa isgaashaan buraysigaas inuu yahay mid isaga anfacaya. marka laga hadlayo ahamiyadda gobolka geeska Afrika, waxaa muhiim ah in la isdul taago khilaafkii dhowaan ka dhex qarxay wadamada GCC ee Khaliijka Carabta, kuwaas oo saameyn ku leh gobolka geeska Afrika. waddanka Qatar ayaa waxaa go'doomin ku soo rogay wadamada kale ee Khaliijka isku jiraan sida Bahrain, Sacuudi Carabiya iyo Isutaga Imaaraadka Carabta, taas oo siyaasadii mandiqada bariga dhexe iyo waliba midda gobolka geeska Afrika saameyn ku yeelatay. arrimahaasi waxa ay keeneen in marnaansho xagga awoodda ah ay bilaabato, inkastoo weli ay jirto tartan culus oo si hoose u socda. gobolka geeska Afrika oo muhiimado waaweyn oo gaar ah leh waxaa ka soconaya tartan aan la soo koobi karin. tartankaasi bilowgiisii hore waxa uu ku ekaa waddanka Djibouti oo uu Mareykanku saldhig ku leeyahay, Shiinuhuna uu kol dhow saldhig halkaa ka samaystay. waxa ku soo xigay waddanka Turkiga oo Soomaaliya inteeda badan saameyn ku yeeshay, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya, waxaana Turkigu uu maamulaa dekedda magaalada Muqdisho, isagoo oo doonaya sidoo kale inuu isku ballaariyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Somaliland waxaa iyaduna la sheegayaa in baryadan ay soo baxayeen in Ingiriiska iyo Ruushku ay doonayaan in saldhigyo ciidan ay ka samaystaan. muhiimadahaasi oo dhan ayaa ah kuwa loo baahan yahay in si foojigan looga faa'iideysto, waxaana la aaminsan yahay in ay garwadeyn ka yihiin wadamada Khaliijka Carabta isbedelada halkaa ka soconaya. maamulidda badda cas waxay sidoo kale siinaysaa ahmiyad gaar ah wadamada adduunyada ugu waaweyn, waxaana waddan kasta uu doonayaa in uusan ka maqnaanin maamulidda, maadaama dalalka uu xulafada leeyahay ay baddaasi isticmaali doonaan. si kastoo ay ahaato, loolanka ka jira gobolka geeska Afrika waa uu sii xoogeysanayaa, waxaana wadamada dhaca gobolka geeska Afrika ay u baahan yihiin feejignaan dheeraad ah si ay uga faa'iideystaan tartanka, iyadoo oo aan saameyn taban aysan ku yeelan xifaaltanka u dhexeeya wadamada dunida ugu cududa weyn. dad badan waxay saadaalinayaan in laga baqdin qabo in dagaalkii saddexaad oo adduunyada ka dhici karo, maxaa yeelay waxaa daliilo loo soo qaadanayaa sida Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushku ay cududooda military u sii ballaarinayaan, iyagoo oo sidoo kale saldhigyo military ka samaysanaya meelo ka baxsan dalalkooda. barnaamijkeeni falanqaynta Jimcaha oo aanu ku gorfaynay maanta oo Jimco ahayd tartanka quwadaha adduunka ay ugu jiraan gobolka geeska Afrika, akhyaartaana daawanaysay waa naga inta dhammaan bahdii shabakada wararka ee Warqad Tube-na waxay idinkaga mahadcelinayaan daawashadiina iyo sida aad had iyo jeer u jeceshiin in aad nagu dhiirigelisaan inaan barnaamijyada noocan oo kala idin soo gudbino. tan iyo barnaamij kale mid intaan dib u kulmi doono, dhammaanteen isku duwan waxaan leenahay nabadgelyo.